بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastood joogtiin bawaadinin salaamaya. waxa loo oran jiray awal waan iska hadlaynay hadday hiiraba dhacday. waxa dhacay yaabkii afkiiba joogda gabay runtii dadkeena gaar ahaan dadka xaafadda balbala ee gobolka Buldhuqo ka dega. waxaan ogeyn in dadkaasi xoolahoogii la dhacay. waxaan ogeyn in aqaladoodii laga burburiyay. waxaan ogeyn in goodoon lagu sameeyay oo biyihii cuntada loo diidanaa si ay uga guuraan meeshaas. waxaan ogeyn dhibaatooyin fara badan oo soo gaadhay. taliska waxaan ugu yeedhnay bay ahayd inuu arrinkaasi wax ka qabto. waa uu isku dayay laakiin waxba waa uu ka qaban kari waayay. marka uu waxba ka qaban kari waayay hadda waxa uu adeegsaday mar kale xoog iyo xeelad kale ayuu adeegsaday. daraad iyo maalmaha waxa dhacday in dadkii buulashoodii iyo cooshadahoogii inuu talisku ololiyay dab uu qabadsiiyey. haddii ay jilkii tahay, haddii ay tahay cooshadihii, haddii ay tahay qalabkii wax lagu karsanayay ama biyaha lagu dhaansanayay, dab ayuu ku ololiyay. waxaana la sheegayaa dadka qaarkood in nasiib wanaag ay ku dhiman gaadheen dabkaasi oo ay ka carareen si looga firxiyo meesha ay degan yihiin, loona iibiyo oo looga iibiyo dad lacaga sitaaya taliska uu ku dhaqaaqay. taasi runtii waxay keentay ciil bay keentay, cadhay keentay, waxay keentay dadkiisi inay is-abaabulaan, inay ciil iyo cadho ay yidhaahdeen waan ka qaxaynaa Djibouti, waxaan u qaxaynaa dalalka dariska gaar ahaan halkaa iyo Soomaaliya ayay u kaceen iyo Somaliland ayay u kaceen. waxaan ogeyn dadweynaha reer Djibouti ciday doonta ha noqoto ku shaqeeyay iyo kuwan shaqeynba inuu ka qixi jiray ilaa hadda laga qaxa dalkeena. waan ognahay loona qaxo dalalka reer galbeedka, Mareykanka, Canada iyo Yurubta in loo qaxo. waan ognahay iyagoo dadku ay ka baxsanayaan tacadiga iyo xaqdarrada iyo dulmiga iyo dhibaatada loo geysanayay iyagoo ka cararaya. waan ogeyn intaas waa intay taal kale carari karaysa. laakiin dadka hadda la sheegayo ee socday ee xagga Soomaaliya u kacay waa hooyooyin, waa caruur, waa dad da'a, waa dad maatiya. runtii waa ayna taabatay. aadna waan uga xunnahay. dadweynaha reer Djiboutina waan ogeysiinaynaa, adduun weynahana waan ogeysiinaynaa. haddii ay tahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay-adaheega ku shaqo leh dadka lagu tacadinayo, dadka xuquuqdooda la dhacayo ee la dulmayo, dadka qaxaya waan ogeysiinaynaa. taliskana waxaan ugu yeedhaynaa inuu arrinkaasi si degdega wax uga qabto oo uu u sii daayo dalalka iyo dadka reer Djibouti ee raba inay wax ka geystaan arrinkaas inuu u sii daayo. hadda waxaan ognahay dadkaasi iyagoo shalay waa dhawaadkii ka dhaqaaqay xaafadda Buldhuqo inay u sii jeedeen xalay oo dhan iyagoo lugaynaya, shalay oo dhan iyagoo lugaynaya. dadku marka ay maatidu ay daasho, haddii ay caruur tahay iyo haddii ay da' tahayba dhexda ku nasanaya. xalay catar ayaa ay bariyeen, waa ay ka guureen. saaka waa dhawaadkii. hadda waxaana loo sheegayaa inay joogaan xuduudii Somaliland ee loo yacada. ciidankiina halkaa uu isku u tegay oo uu ishartaagay si ay u socdaan iyagoo hadda xalkii doondoonaya. waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha reer Djibouti dalka iyo dibaddaba inta joogta. waxaan ogeysiinaynaa adduunka in dhibaatadaasi iyo dulumkaasi iyo dhacaasi iyo dadka la laynaya ee xaqoogii la dulmayo in waxaasi ay tahay wax la dhaliilo ay tahay, wax laga xumaado ay tahay, wax farta lagu fiiqa ay tahay. runtii annaku haddaan nahay siyaasiyiintii hadda gacanta taliska kuma hayno, taladana kuma hayno. waxaan u rajaynaynaa uguna yeedhaynaa ummadda reer Djibouti meel kastay joogaanba darxumada cid kastaba meel ku haysata, darxumada dalkiiyo dibaddaba dadkeena ku haysata. runtii kama baxayno. isbeddel suuragala maahina. isbeddelkaana waxa suuro gelin kara
إنك أيا سورة جلين كرينا وايو حالكو كما جرى تالسكن وايو حالكو كما جرى دولدا وايو حالكو كما جرى ما دركتي دادكن كتعدية حقوق الإنسان كأمد الريجيبوتي ميل كستو جوكتين با وحان إدين كو يارينا فوجيقنان بان إدين كو يارينا وحان إدين كو يارينا من نما قرن بان إدين كو يارينا وحان إدين كو يارينا إن هلقن كلا حوجية بان إدين كو يارينا إن اسبدل كلا سورة قلية بان إدين كو يارينا جمهورية جيبوتي هنولاتو أمد الريجيبوتينا هنولادان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.